بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داود يال كسر دوادا برنامج كأني نبك هذا البرنامج كنبك هذا الغيبتن waxaan kaga hadli doonaa dawlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga waxa shalay soo gaadhay wasiirka haweenka dhalinyarada iyo caruurta ee dawladda federaalka Ethiopia Marwo Filsan Abdullahi Ahmed oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay shaqooyin badan ka qabatay intii ay jirtay marka la fiiriyo xaaladaha bini'aadanimo iyo waliba arrimaha dhalinyarada iyo haweenka waxaan eegi doonaa qaabkii loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga iyo kulamo isdaba jooga oo ka dhacay halkaasi oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan sidoo kale waxaan eegi doonaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee Filsan ay la timid ama qorshaha ay la timid wasiirku magaalada Jigjiga jaamac soo dhawow Filsan daraad bay soo gaadhay magaalada Jigjiga balka warna qaabka loo soo dhaweeyay iyo waxyaabaha ay la socotay yahu si fiican baa horta loo soo dhaweeyay oo maxaan ku dhahdaa to inkasta oo dawladda deegaanka Soomaalidu aysan maaragtay kaalin muuqata aysan ku lahayn waayo wasiir heer federaal weeyaan gabadhu wasiirka dhalinyarada iyo haweenka ee dawladda federaalka dalka Ethiopia weeyaan marka la fiiriyo marka miisaanka ay lahayd iyo qaabkii maaragtay dawladda deegaanka mas'uuliyiinteedu ay maaragtay uga muqurteen waxa jar maaragtay moodaa in ay xogaa arintaasi ayna qurux badnayn ha oo de madaxweynuhu wasiirada kale hadii wasiir maxaan ku dhahay wasiir ku xigeen maamulkiisa imanay ma wasiir ku xigeen maxaan ku dhahay dawladda federaalka ka socda oo qoomiyadahan kale gaar ahaan kuwan maaragtay hadda talada ugu xoog badan haduu imaanayo meeshu iska sii xaadirin lahaa moogta seelatiis ha ma wasiir uu soo dhaweyn ba jiro oo Jigjiga yimi wasiir federaal ba haduu yimaado madaxweyne Mustafa soo dhaweeyay uma kala hadaan kooxaha dhaantada iyo kuwa maaragtay waxa soo dhanna waa la sii kaxaya meesha la sii geeya tanna waxa soo dhaweeyay koox dhalinyaro oo adigu iskood soo abaabulay iyo xisbiyada mucaaradka sida ONFT iyo maxaan ku dhahdaa kooxaha kuwa noocaas adigu is abaabulay oo meesha tagay oo kuwaas ka yar dhisay laakiin xagga dawladda deegaanka Soomaalida haween wax saameeyna kuma hadii ay ka tagi weydo booska iyadoo ay ku magacaaban tahay gabadh ku magacaaban dawladda federaalka booska iyadoo kaga magacaaban tahay gabadh dawladda deegaanka kaga magacaaban waa wasiirka haweenka iyo caruurta wax noocaas yaa qayb ka ahay taasuna waxa weeyaan meesha uu yar maartay tagista bay maartay muhiimadu yahay marka adu gabadhaas waa la soo dhaweeyay si fiican baa loo soo dhaweeyay kadib magaalada u soo dhaadhacday kulamo marka isdaba joogay maalinkaas yeelatay oo ay la yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka oo iyadu qolada maartay ay xilkooda ku magacaaban tahay runtii su'aalo badan ba halka lagu weydiiyay qorshaheeda iyo doorka dawladda federaalka xaqirnaanta ummadda Soomaaliyeed ay xaqiran yihiin gaar ahaan dhalinyarada oo aan ognahay inay tahay laf dhabarta bulshada Soomaaliyeed wax saameyn aan ku lahayn gabi ahaanba dalka Ethiopia marka la yiraahdo shaqo kuma lihin shaqaale kama nihin maxaan ku dhahdaa to looma aqoonsana xitaa inay Ethiopian yihiin hadii dhalinyaro jaamacad ka soo baxday oo waliba jaamacadda Addis Ababa ka soo baxday maanta intay tagaan ay maxaan ku dhahdaa ay application u qortaan wasaaradda caafimaadka oo kale waaba lala yaabiba meesha maxamar bad malayn saabal dhig ayada marka waxay Soomaalida deegaanka ha Soomaalida deegaanka ay moogtahay marka xamaar dadka waa isugu mid iyaga ha kan Hargeysa joogiyo kan xamar joogiyo kan Jigjiga jooga waa isugu mid iyaga adiga un baa adigu kala yaqaan oo xamar iyo Jigjiga iyo Djibouti iyo ay ku kala yihiin oo meeshaas ama waxa doontaba maartay adigu aad isugu kala saartid ayaga laakiin isku mid baa u tahay iyaga Soomaali waa Soomaali adoo Addis Ababa ku dhashay oo af Soomaali ba aqoon marka dhaha Soomaali baan ahay oo maxaan ku idhaahdaa to halkan aan shaqo ka rabaa goot xamar baa leeyahay ha xamar aad baa la dhigay meeshu ma aha xamar waa Addis Ababa say wax ka noqdeen soo gar ayaa marka sheegtay waxaan noqday way tiri gabadhii ama qofkii ugu horeeyay ee qof Soomaaliya oo shaqaale ah ka qoray dawladda federaalka Ethiopia dhalinyarada muuqaalkaas uu yaala qofkii ugu horeeyay ee wasaarad kamid ah wasaaradaha Ethiopia shaqaale qof Soomaaliya ugu qoray ee qaat way baldaawadayaasha aan la wadaagno wax yar muuqaalkaasi wasiirada Filsan tabasho wanaagsan su'aashiina dhahaysa xafiiskaaga imisa directora imisa Soomaaliya well unfortunately xafiiskayga wax Soomaaliya kama shaqeyneen markaan mid ana ugu horeeyay
qofkii ugu horeeyay Soomaaliya xafiiska imaadana qofkii Soomaaliya ugu horeeyay qof Soomaaliya shaqaaleysiiyana waan ahay oo guuleed wad istaqaanaan baan maleenayaa marka kootada inaga maqan waa xafiiska kaliya ma xafiisyo badan waan shaqaaleysiinayna laakiin waxaan ka rabnaa dhalinyarada inay muujiyaan firfircoonidooda ay hore u yimaadaan kana soo qayb galaan fursadaha badani waxa la inagu dhaliilaa dhalinyaradeenna siiba shaqo hadii la siiyo ma joogayaan ma xamilayaan caasimada ma rabaan deegaankay ku soo noqonayaan way hadalkaas jeedis ها way taasi marka waxay muujinaysaa xubnaha wasiirro badan baa hadda ugu markay ay iyadu sidaa ku leedahay iyadu markay sidaa ku leedahay ma aha in ay Soomaalidu wasiir la'aan ku ahayd meesha ugu yaraan hal wasiir iyo laba wasiir ku xigeen way soo lahayd way soo lahayd mar waxaa jira dhowr wasiir ay lahayd shaqaaleysiin jiray marka lagaas tiba waxa ma shaqaaleysiin karaan ba wasiirku meesha mushaarku u doontaa markii shirka golaha wasiiradu ay shirhayaanna uu ka qayb galaa laakiin wasaaradda wax saameyn oo uu ku leeyahay xataa wasaaradda xogteeda ma hayo agaasimaha iyo wasiirka ayaa wasiir ku xigeenka ayaa waxay u soo gudbiyaan maxaan ku idhaahdaa macluumaadka uu shirka la tagay waxaan qabanay saasan yeelay shirkan buu ka soo qayb galaa halkaas kaameradan buu ka muuqdaa waxa la yiraahdaa wasiirka Soomaalida laakiin hadda Axmed Shide markii la fiiriyo doorarkii hore iyo hadda ka saameyn badan yahay laakiin markii saameyntiisaas maxay tahay waa xiriirka kala dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo inta ku yar dhaqaaqaya laakiin hadda wasaaradda Soomaha miisaaniyad sanadeedka la dejiyay xitaa waxa uu yahay iyo sida loo dejiyay iyo qaabka loo jarjaray iyo waxa soo dhan waxba kama ooga waa loo soo gudbiyay ku celiyo Soomaalida u badiyay buu xoogaa jasbatihiin xoogaa Soomaalida waa loo badiyay doorka 22 bilyan baa la gaarsiiyay oo lacagta Itoobiya way tan yarina waa taade maaragtay shaqaalaha ka qoratayba waa record bay jibisay maxaan ku yiri marka shaqaalaha qoratay ha waa taariikh weey muwaadin Soomaaliya oo wasaarad kamid ah wasaaradaha dawladda federaalka ee dalka Itoobiya intuu buug iyo qalin qaatay laga qoray u shaqo tagay qofkii ugu horreeyay hirgeliyo muddo kooban way joogtaa 5 bilood miyaa wax noocaas ay joogtaa ka yar weli adu 4 bilood meelaha ay joogtaa 3 bilood ay joogtaa hadda markii murankii xoogana ee Tigraaga iyo ka dhex qarxay adu markii u bato waa 5 bilood bay joogtaa hadda yay boos ay wasiir noqotay ha gabadhan marka xogaa marka aan fiirino background-keeda kale hadii aan dib ugu noqono gabadha horta waa qurba joog bay ahayd kolkii hore dadkii wax ku bartay bay ahayd Itoobiya Addis Ababa wax ku bartay markii dambana qurbaha haddana wax ku soo baratay way soo noqotay soo noqoshadeedii ay soo noqotay iyo isbedelkii baa kulmay koox oroma ah oo iyadu ay hogaaminayso oromada iyo Soomaalida marka aad isu leynayay moogtahay waxay abaabushay dad aqoon-yahan oo qoomiyadda oromada ka soo jeeda Addis Ababa lug ka soo bilaabeen lugtii Addis Ababa ka soo bilowday jigjiga ku timi luga ha ma gawaari bay wateen oo kalba tuulay soo istaagayeen dhulkaasuna meel banaanba ma laha waxay ku qaadatay adigu muddo 3 bilood ku dhawaada Addis Ababa iyo jigjiga marka say dadkii oo la soo hadlayeen dadkii u abaabulahayeen Soomaalida iyo Oromo waa walaalo waa la isku keendiray maxaan ku dagaalina maxaa idin ka dhaxeeya hadii dhib jiro waa la xallin laakiin baangadahan iyo waxaan aad la ordaysaan baagana Oromadu waa gadoodsanada Soomaalida ma maqli karin moogta marka 3 bilood bay ku qaadatay markii dambe jigjiga ku yimaadeen jigjiga markii waxay fahantay marka baahidii taalay deegaanka Soomaalida fahantay way noqoshadii ay noqotay waxay ku samaysay marka oo ay dhidibada u dhigtay TV-gii ugu horreeyay ee madax bannaan ee Soomaali ay leedahay Itoobiya laga hirgeliyay TV-ga nabadda la yiraahdo nabad TV ha ee dhidibada u taagtay halkaas marka iyo gabadhu haddana mar labaad awal hore maxay ahayd activist nabadda u dhaqdhaqaaqa oo heshiiskii iyada nabadii warbaahin ka dhigtay ha nabadii iyo dadaalkii ay wadibay TV-gana ku xoojisay Soomaalian garan mar labaad bay haddana abaabulkii dhinaca wacyigelinta iyo nabadda iyada oo TV-geedii kaashanaysa iyo haddana mar labaad maaragtay ay sii hirgelisay
ما هذا حقيقة مركا مامل كديان كسومالي أو قروادين كويه مدحوين مصطفى محمد عمر أيها يسوون مركاسي ما ارتقاب هير مامل يجي مامل كي أرمضو أي هوشي أو استاجين واتي شروين لو قبتي أرامة واتي مدحوينهن أي تجين محن كل هذايتو مامل كي سهلك أي تجين أي لصو كل من محن كل هذايتو أرمضة قيبه ذاك الدنيا مامل كودي أول لفنا أي كم ذا هاي واتي مركي دم مدحوينه أرمضة يمد ماشي لو وصل عنا اللي سين هاي ما قاعد دق ها halka iyadana la geeyay Soomaaliya garan halkaas ay marka xasiloonida oramada iyo maxaan ku idhaahdaa to Soomaalida ka bilowday filsan baa maaragtay aabi iyo hooyaba u ahayd madaxweynaha iyo maamulkiisu way sii xoojiyeen kadib xurguf dambe ayaa bilaabatay oo waa dhaweyto oo lees eryanayay markii kacdoonka oramada intii uuna bilaabanin waxaa jiray xogaa xurguf siyaasadeed oo xoogaysanayay oo tan Tigreegana la jaan qaadaysay dhinac markii laga fiiriyo oo khilaafkii markuu soo baxay Tigreega iyo Abiy Ahmed yaa waxa iyaduna soo baxday xogaa koox Soomaali ah oo la baxday isbedel doonka oo iyaga naftirkoodu maxaan ku idhaahdaa doonayay maamulkan in meesha ay dhaafiyaan maamulkan deegaanka Soomaalida ee uu madaxweyne Mustafa Maxamed Umar garwadeenka u yahay marka wuxuu isku xidhay maamulkii maxaan ku idhaahdaa to ragii Tigreega ahaa ee ay iskood isugu dhacsanaayeen Abiy Ahmed iyo kooxdii mucaaradka ahayd ee Soomaalida ahayd maxaan ku idhi kooxdii Soomaalida ahayd ee mucaaradka ahayd ee doonaysay Mustafa inay meesha ka qaadato oo haa iyo jigjigaba way joogeen oo shaqo iyo shaqaba isku lahayn Mustafa markii mucaarada uu ka dhex kacay moogta baarlamaanku waa tii ay balaayada ka dhex dhacday ee burka la iskala daalay ee xubno badan oo baarlamaanka kamid ah kimbil laga siiyay qaar gacanta laga jibiyay ee dhibaatada ay dhacday wariyayaal ka socday TV-ga nabad TV waa kuwa iyagana maxaan ku idhaahdaa loo dhex raaciyay ma qaar waa la xirxiray oo kaamaradihi ba laga jibiyay oo filsanna markaa de TV-ga iyadaana le waana wasiir heer federaal oo Mustafa koox buu markaa abaabulay oo maartay afku xooglayaalho maxaan ku idhaahdaa to meeshan la yiraahdo buurta saaran waxay yiraahdeen filimkani waxaan oo dhanba filsan baa ka dambeysay hay filsan ma lameysay filsan baa ka dambeysay oo maxaan ku idhaahdaa to iyada waxaan soo aabashay iyana waa tii yar maaragtay in yar oo qoraal Facebook soo dhigtay tii maxaan ku idhaahdaa to xurriyatul qowlka iyo dimuqraadiyadda deegaanka Soomaalida waan u soo halganay cidna u daba fadhiisan mayno halkiiba adigu xoogaa iyo xurguf siyaasadeed ku dhex martay Mustafa iyo Filsan Filsan marka daraad su'aalihii la weydiiyay kamid ah adiga iyo madaxweynaha maxaa ka dhaxeeyo hor aniga madaxweynuhu wax naga dhaxeeyo malahan bay oo khilaafa madaxweynuhu waa madaxweynihii deegaanka waa madaxweynihii gobolkeena waa madaxweyne maxaan ku idhaahdaa to si sharci ku joogan taageersanahay de siyaasadana waa lagu kala aragti duwanaan karaa laakiin haddaan siyaasadda ku kala aragti duwanaano cadow ma nihin oo col ma nihin isagu laakiin wuxuu aaminsanahay inay col yihiin madaxweyne Mustafa col xiira inay yihiin way adigu imaatay kulamay qabatay kulamadii shalayto kulankii ugu ballaadhnaa yaa dhacay Filsan way u yeedhay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar way ka maaragtay iyada ka taytal sarreysa isagu waa madaxweyne gobol weeyaan iyaduna waa wasiir heer federaal waxa weeye waa wada hadleen adigu madaxweyne Mustafa wixii uu qabayba dib u liqay way u yeedhay way yimaadeen shirkii uu ka soo qayb galay shirkii iyada maxaan ku idhaahdaa to maam abaabulkiisa iyo wixii salahayd halkii waxa meeshii ka soo baxay adigu kulan aad u qiimo badan oo madaxweynaha iyo gabadha wasiirka iyo ahzaabtii mucaaradka ahayd oo xisbigii Sheekh Ibrahim maxaa la horta UDFB niyo ma karaano kaas xisbiga Sheekh Ibrahim baan u aqaanaa UDFB adigu xisbigaas iyo on lafta iyo ana rabaa inaan xubin ka noqdo waxa aday ku taala maxaan ku idhaahdaa waa laga wada qayb galay meesha si fiican baa loogu kaftamay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar si fiican buu u hadlay madaxweyne Mustafna maalmahan todobaadyadan wuxuu muujinayaa wadaniyad iyo Soomaalinimo iyo ugu yaraan in maaragtay bal Soomaalinimadii dib loo soo celiyo runtiina waxaan anigu aragtida aniga aan qaba waxay tahay inuu ku mahadsan yahay tan walow markii hore isagu uu haleeyayba hadda laakiin dadaalka isaga dalkii madaxweyne ka horta wixii hagaagan isaga mas'uulka wixii halaaban isaga mas'uulka dadka isaga kolkii hore kala eriyay isaga kala caydiyay isaga mid walba shan laamood kala booday miduu u hanjabo iyo miduu xabsiga dhigo iyo miduu guriga ugu dhaco iyo dadkii ka dhigay
ari dhurwaa ku dhex dhacay uma maqasho 6 bilood buu weyrxsanaa sidii loo godoodsan uu kala xagga u orday iyo kala xagga u orday iyo kala qola ku dhex dhaco qola afuraysa meel oogu gal qola suxuuranaysa ka kor dhac qabaal ordaayo oo wiil shacab wata hadda laakiin hadda caadi uu xasilay waxaad moodaa in uu xaqiiqdii ogaaday in waxan dadkiisi ay yihiin dhib qofku hadduu og yahay fiiri siyaasadda waa lagu kala aragti doonaan karaa siyaasadda waa la isku qaban karaa siyaasadda waa la isku khilaafi karaa wax sii jiraya ma aha laakiin siyaasadda markii qofkii kaaga hor yimaadaba markaad cadow ka dhigato ninba hadda curyaan oo dhabarka ka jaban oo jiifa siraaj aadan soo garan wax dambiya oo uu galay ma jirto soo carariyo dhabarka ha qabaal lagu eriyanayo wax dambiyaha uu galay qof muuna caayib qof muuna cadaabin Mustafa khaldan muuna dhihin systemkanu sidii aan rabnay ma aha inuu yahay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar marka waxa la rabay inuu dulqaad yeesho samro ogaado waxaanu dadkiisii inay yihiin oo maxaan ku dhahdaa balaayo dhan ay kaga soo bixi oo mid dib u socda iyo mid dhinac u socda iyo mid gadaal u socda iyo mid meel u socda aan la garanaynin inay ka kooban yihiin kuma wana xisaabtamayna wuxuu isiri un qasab ku toosay sida Cabdi Ilay waa arbu qabaal la dhex orday dadkii hadda laakiin waxaas dhan waa ka yimid ها ما dadkiina hadee si kasta fiire qoolay qoorqabad biyo kuma cadto dadku qasabka kuma raacayaan marka dadkiiba marka ninba meel ka dhacay in walba naftiisa meel mid hoosta ka gamiis hoosta ka galay mid adisaba u baxsaday mid dir dhaba tagaba calaayay taxal madaxweyne Mustafa Maxamed Umar haatan waxaad moodaa meeshii ugu wanaagsanayd inuu ka qabtay inuu kooxihii mucaaradka ahaa oo isugu yeeray in walba xilligan iyo waqtigan xasaasiga ah ee lagu jiro isagana kaliya wax ma qaban karo runtii intaas uu weeraxsanaa waxa ka halaabay Soomaali you can't imagine inta uu madaxweynuhu weeraxsanaa waxa Soomaali ka dhumay ee ka halaabay cid qiyaasi karta male dhaqaale ahaan mashaariicdii siyaasadii maxaan ku dhahdaa dhan walba dhulkan galay hadda se waxaad moodaa haddii uu isagii marka intuu garowsaday inuu dalkan isagoo madaxweyne u yahay dadkana isaga ay hoos yimaadaan dhib iyo dheef wixii meesha ka soo baxana mas'uuliyadeedu isagu uu leeyahay uu intuu garowsaday uu u yeeray kooxihii mucaaradka ahaa gabadhii wasiirka ahayd ee maxaan ku dhahdaa ay biyaha hoostooda iska arkeen iyadiina maxaan ku dhahdaa ay soo gara fadhiisteen waxaad moodaa guul waxaan leenahay madaxweynaha dalkan adaa xukuma dadkana adaa madaxweyne waa mas'uuliyadu aday ku saaran tahay haddaad sugayso amaan iyo in lagu sacbiyana inta ku qaniinaysa badan inta ku qaniinaysa waxa laga yaabaa adoo saxsan oo wanaagsan oo si fiican wax u qabanaya qolo uu meel ay kala qaadi aadan garanaynin inay kilkilaha ka qaniinaan ha qoonsanin dad badan baa ku qaniin hadii loo baahdo anaga kow ka laakiin waxa muhiim ah waa lagu toosin waa lagu hagaajin waa inaad garato toosinta lagu toosinaya inay tahay mid aan adiga dan gaara lagaaga lahayn hadii lagu dhaliilana ay tahay mid aan adiga dan gaara lagaaga lahayn markaad xafiiskaaga iska joogtay meeshaad iska baashaalaysay ma cid baa shar iyo khayr ku hadalhaysa waa maya meeshaas ninkii soo fadhiista kursi umad leedahay hareerahan baa laga kicin marka kulanka shalayto kulan gabadhu hal ahaato maxaan ku dhahdaa abaabulkiisa iyo maxaan ku dhahdaa mas'uuliyadiisa hal ahaato laakiin kulan sawir fiican bixiyay oo iyagiina ay ku kaftameen oo isku jiijiideen oo ay maaragtay wax badan qaar badan baa marka waxay u haysteen qaar badan baa waxay arkeen muuqaal yar oo sawir waxaan arkay meel laga soo duubay oo mid leeyahay yani qoriyo soo dhaweynaya oo leeyahay dawladda Mustafa waxa ka hoos dhisan dawlad ka xoog badan ama dawlad kale inay ka hoos dhisan tahay baa hubaal ah marka haddii gabadha la soo dhaweeyo ma aha in dawladda ka hoos dhisan tahay deegaanku dawlad buu leeyahay hal dawlad buu leeyahay hal madaxweyne leeyahay wasiirru leeyahay iyadu federaalka ka timid الدولة قبلها أي كوتشرتو يدولة نكوهس لسنا حزب معارضنا ويلده ها حزب معارض بلاد هاي ما ملك ولا معارضي ولا معارض تايت ولا تشيشيدي ولا بهدير سورو بيسو عجاه الله يسوق فني هسا ماشي لقى قالم برقاء سوى تاجر وهو سياسة ويل اسمه دايو نن ما ترى لكن هذا حالة الوتشر و ها ما سوى سنة سيد الله صعب ها إن ماشي لقى قاتو يسكفي عنها لكن ماشي وقتي دورش اللي قاعد هدي لك قاعد كذا لا قاعد لا سكواس تنشك لا سكواس ما أدنى ما صدق يجاوب وياي أدنى بقولنا إننا كل ما داس كده عين مقالة تشجيع أي يشان
wasiiradda haweenka iyo dhalinyarada dowladda federaalka Ethiopia Marwe Filsan Cabdullaahi Axmed madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo asxaabta mucaaradka madaxdooda Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi iyo Ibrahim Maxamed Xuseen oo maaragtay iyaguna ka socday asxaabta mucaaradka ee dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan ONLF iyo UDFB aad baanu maaragtay maqsuud uga nahay una leenahay waa tallaabo wanaagsan in Soomaalidu ay yeelato maaragtay policy good ama siyaasad guud oo ay kaga midaysan yihiin waxyaabaha ka dhacay Ethiopia sababtoo ah wax ku kala maqan dadkan Soomaalida ama jiro waxa ku kala maqan waxa weeye in dalkooda iyo dadkooda u wada adeegaan oo ay wada hagaajiyaan siyaasadana maaragtay wixii xifaaltan siyaasadeed waa iska gooniyaan dhibaato keenan laakiin wixii Soomaalida iyo danaheeda mar walba in laga wada shaqeeyo amniga iyo maaragtay xasiloonida deegaanka in laga wada shaqeeyo siyaasiyiintuna ay sawir fiican bulshada u muujiyaan aad bay mar walba muhiim u tahay inuu dhiirigelinayna kulankan iyo kii ka horeeyay ee asxaabta iyo aan idhaahdo madaxweynuhu ay yeesheen aad bay runtii soo dhaweyn mudan yihiin waana ku faraxsanahay marka halka ka wadaan leenahay tan iyo kulan dambe fi amaan illah